xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada dowladda Galmudug xildhibaanada agaasimayaasha dhammaan qaybaha kala duwan maayarka caasimadda inta ma halkan laga soo wada qayb galay munaasabadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib aad iyo aad ka mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo qayb qaadatay munaasabadan iyo qabanqabadeeda runtii hawshan muhiimka ah qiimaha badan ugu fadhisa ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan reer Galmudug intii ka soo qayb qaadatay waa idin mahadcelinaynaa dhammaantiin mahadcelin kadib maanta waxaan isugu nimid cudurkan fayraskan adduunka aafeeyey runtii dad fara badan adduunka ay u dhinteen dad badan ay u yaalaan ama u jiifaan oo hayo lana hubiyey inuu soo gaaray Soomaaliya oo waliba uu saameyn ku leeyahay oo laga helay kiisas aad u badan Galmudugna aan ka midnahay Soomaaliya oon u furannahay dhammaan qaybaha kala duwan iyo deegaanada kala duwan ee Soomaaliya sidoo kale aan dowladda qaarkood ama meelaha qaarkood uga duwannahay inaan xuduud dheer la leenahay dowladdan dariska nahay Itoobiya xaaladahaas oo dhan ay jiraan waxaa cad inaan cudurkaasi sida uu Soomaaliya u saameeyay ama hadda u soo galay aan Galmudugna u fili karno ama inuu ka jiro loo fili karo saa darteed waa in la qaadanaa tallaabooyinkii ku habboonaa inta aan kari karno intii aanan hadda awoodida lahayna aan u qeyrsanno oo aan u doonanno awooddii naga baxsan sidoo kale waxaan rabnaa inaan furno xarig ka jarno goob loo asteeyey caasimadda dowladda Galmudug Soomaaliyeed ka mid ah oo testiga in lagu qaado lagu talagalay sidoo kale waxaan guddigu ka howlgeli doonaa oo howlihiisa ka mid ah inay asteeyaan goobo lagula tacaalo dadka xanuunkaasi soo rito ilaahay waxaan ka baryaynaa in xanuunkaas iyo dhibaatadiisa ilaahay naga qaado guud ahaan adduunka ka qaado gaar ahaan Soomaaliya ka qaado aan Galmudugna uga ducaynaynaa balse tacaalida iyo dadaalku waa kaasi mar haddii la hubsaday waa waajib muqadas in la qaato guddigu waajibaadkooda ka mid tahay qodobada oo waajibaadka guddiga waxaa ka mid ah inay goobahaas si dhaqso ah ku diyaariyaan lagana diyaariyo dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Galmudug kaliya caasimadda maahan magaalooyinka aan hadda si degdeg ku talagalka u sameynayna waxaa ka mid ah Cabadwaaq Cadaado Gaalkacyo Hobyo magaalooyinka aan rabno inay si dhaqso ah looga howlgalo sidoo kale magaalooyinka waaweyn waxaa ka mid ah Gurceel oo caasimadda uga dhow yahay magaalooyin badan goobahaas in laga asteeyo lagu talagalo guddiguna ay gutaan waajibaadkooda insha Allah taala ku aadan fayraskaas ama cudurkaas halakeeyay adduunka oo si dhaqso ah arinta loo qaato sidoo kale waxaan rabaa bulshada reer Galmudug meel kasta joogaan inaan ugu baaqno muddooyinkan dambe waxaa laga yaabaa in la arkayay arrimo dib u heshiisiin iyo howlo degdeg ah oo laga maarmi waayay iyo iyadoo la soo imaanayo dhammaan in la joojiyo isu-imaadyada iyo kulamada in la istaajiyo la joojiyo hore waa loo joojiyey la xaqiijiyo la kormeero goobaha waxbarashada inay dadka qaar mararka qaar waxaa dhici karta aysan iska indhatiraan ama aysan u hoggaansamin la xaqiijiyo sidoo kale dadku aad iyo aad ugu hoggaansamaan talooyinka caafimaadka la qaato aan la sahlan haday tahay talooyinka soo gudbinayaan guddiga iyo haddii ay tahay talooyinka ay soo gudbinayaan dhammaan hay'adaha caafimaadka adduunka meel walba oo ay joogaan ama kuwa Soomaaliya ama kuwa Galmudug ay soo gudbinayaan loo hoggaansamo aan marnaba la isku dayin in la fududeysto xanuunkan
si sahlan dadkaaga ha ku gaarsiin gurigaaga ha ku geynin xanuun bulshadana ha ku gaarsiin dhammaan waxaan leenahay goobaha isu imaadka iyo fadhiyada iyo hadday tahay shir hadday tahay sheeko caadi hadday tahay mid la isku imaanayo goob kale goob ganacsi intaba in la joojiyo la istaajiyo goobaha wax lagu kala iibsanayo iyo waqtiyada laga maarmaanka ah in la taxadarka dadka dhammaan ganacsada ay muujiyaan taxadarka loo baahan yahay hadday tahay inay nadaafadii iyo gacmo dhaqashadii iyo diyaariyaan hadday tahay in qof kasta uu wato maaskii wato in taxadarkii la isfaray oo dhan la yimaado hay-adaha amnigana amar baan ku siinayna haddii laa yidhaahdo inay kormeeraan dhammaan awaamiirta guddigu soo saaro loo hoggaansamo talooyinka caafimaadka loo hoggaansamo inay goob kasta kormeeraan oo ka mida goobaha ama magaalooyinka ama meelaha ay tahay in dadku ay isu yimaadaan ama ay ka gudanayaan shaqooyin sida goobaha ganacsiga oo ugu muhiimsan waxa oo hadda runtii ay tahay inaan isha si gaara ugu hayno oo laga maarmaankahay waa goobaha ganacsiga oo adeegyada iyo laga qaadanayo oo ay tahay in laga helo servicekii loogu talagalay iyo adeegyadii loogu talagalay in la maro oo cudurkaa ku saabsanaa waxaan rabnaa hawshaas in si dhaqso ah qof waliba xil iska saaro meel uu joogo qof kasta oo mas-uul ah waxaan uga fadhinaa goobta uu mas-uul ka yahay iyo meesha uu ka howlgalo inuu ka fuliyo dadaalka iyo talooyinka ku aadan cudurka adduunka halakeeyey aad iyo aad u mahadsantihiin